waxa uu ka mid ahaa saraakiishii jabhaddii SNM ee gacanta ku dhigtay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, balse hadda waxa uu u geeriyooday isagoo laascaanood ka dagaalamaya xilli Muuse Biixi Cabdina qoyskiisa ku hor aflagaadeeyay. Tani waa sheekada murugada leh ee Muuse Biixi Cabdi imaka ka aarsaday nin jabhaddii SNM ka tirsanaa oo rasaas ku furay xilli hore. 1988 Maxamed Cumar oo ku magac dheeraa Gacmay waxa uu khilaaf soo kala dhex galay Muuse Biixi Cabdi magaalada Madaweyn ee ay degto beesha Ayuub Isaaq. khilaafka oo ka dhashay qori Maxamed Gacmay ka soo furtay ciidamadii Siyaad Barre ayuu Muuse Biixi Cabdi ku qabsaday isagoo ku tilmaamaya inaanu u qalmin qorigan oo isagu soo furtay, balse Mujaahid Gacmay waxa uu kaga falceliyay inuu rasaas ku rido Muuse Biixi Cabdi, inkastoo Ilaahay dhaafiyay halkaasina waa lagu kala kaxeeyay. Mujaahid Maxamed Cumar Gacmay waxa uu ka mid noqday ciidamadii qaranka ee Somaliland ilaa uu dhaawac halis badan ka soo gaadhay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaanu ka mid noqday saraakiishii dhaawacooda loo soo qaaday magaalada Hargeysa. 10kii bisha February Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday cisbitaalka ciidamada dhaawaca ah la dhigay isagoo kormeeraya saraakiishii dhaawaca ahaa ayay si kadisa qoyskiisu ugu sheegeen inuu cisbitaalka ku jiro sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cumar Gacmay oo ku soo dhaawacmay dagaalka Laascaanood. Muuse Biixi Cabdi oo gartay ninkan ay ehelkiisu sheegayaan ayaa qoyskiisii ugu jawaabay, Gacmay miyaanu ahayn ninkii aydhigii rasaasta igu riday anigoo reerkoodii dhex jooga, warigala taga kaa soo eegi maayey. Argagax iyo la yaab ayay qoyskii mujaahidku ka dhaawacmay ku noqotay maadaama aanay ka malaysanaynin madaxweyne ummaddan hogaaminaya inuu xasuusan yahay waxa laga soo tegay, weliba ku ciqaabo muwaadin dalkiisa iyo dadkiisa isagoo u dagaalamaya ku dhaawacma. maalmo kadib Mujaahid Maxamed Cumar Gacmay waxa uu geeriyooday dhaawacii ka soo gaadhay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.